degmada Boon ee gobolka Salal waxay dhacdaa galbeedka Soomaaliland waa degmo taariikhi ah oo taariikh facweyn ku leh guud ahaan Soomaaliland degmadani waxa ku nool shacab aad u tiro badan kuwaas oo intooda badan aan helin baahiyaha aasaasiga ee nolosha iyo waliba baahiyaha aasaasiga ee degmada heli karto Boon ma laha wax saldhig booliis oo ay ka howlgalaan ciidamada ammaanka walo ciidamada booliisku ay ku yar yihiin degmadaasi sidoo kale degmadani Boon ma laha wax rug caafimaad oo lagu dabiibo dadka ay xaalad caafimaad la soo daristo ee ku dhaqan degmadaasi waxana gabiyahan iyadoo meesha ka baxday goobta loogu kala garsooro dadka wax isku qabta ee ku dhaqan deegaankaasi taas oo ah maxkamad oo inta badan dadka u dhaxaysa waxana ay taas u muuqataa in xukuumadda talada dalka ay kulmiye ay gabiyahanba ka gaabisay wax ka qabashada baahiyaha deegaankaasi 18 May oo ku beegneed 25 guuradii ka soo wareegtay rubuc qarni markii ay Soomaaliya dib loo soo noqotay xornimadeedii ayaa shacabka degmadaasi oo ilaa hadda dawladda dalka ka arrimsan ka helin baahiyihii aasaasiga haddana waxa ay weynayeen xuska 18 May iyagoo maalintaas u soo baxay dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi halkaas oo ay ku weyneenayeen isla markaana ay ku muujiyeen in qarannimada iyo gooni istaaga Soomaaliya ay tahay mid muqadas ah oo aan ka noqosho lahayn gudoomiye ku-xigeenka degmada Boon ayaa waxa uu si cad uga dhawaajiyay in degmadani Boon ay gabiyahanba ka gaabiyeen dhaxda qaranka kuwaas oo aan waxba ka qabin baahiyihii aasaasiga ee degmadani u baahneed waxana uu gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi uu si cad u carabaabay inay Boon aan lahayn haba yaraatay wax rug caafimaad oo lagu dabiibo dadka xaalad caafimaad la soo daristo waa kan gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi oo ka hadlayay fagaaraha dugsiga hoose dhexe ee degmada Boon maalintii 18 May halkaas oo ay ku soo bandhigay gudoomiye ku-xigeenku sida xukuumadda talada dalkaasi kulmiye u gaabisay wax ka qabashada baahiyaha degmadani maanta waa maalin wanaagsan waa maalin khayr leh waa maalintii xornimada Soomaaliland waxaan soo dhaweynaynaa hadii aan nahay reer Boon oo degmada Boon waxaan soo dhaweynaynaa xornimada Soomaaliland 18 May ayaan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa oo aan leenahay madaxda qarankana soo dhawaada salaan kashka iyo laabta ka soo goday ayaan inii soo gudbinaynaa hadii aan nahay reer Boon waxaan nahay dad degmo jirtay muddo badan jirtay laakiin waxyaalihii dawladnimo maartay nabadgeliyo guryaha ahaa aan lahayn ayaan saldhig booliis mali rug caafimaad malihin maxkamad malihin intaa midna malihin dawlad hoose guriyihii dawladda hoose iyo kuwii maartay martida midna malihin انت عملنا مريم حكومة سوماليلاند تمات الجوتية هروان وديسنين ولي حكمين او يراتين وحكا هاي مجرتو نصيب درو وحن سوقالي وقتي عبارت وحن سوقالي هل امبلاس ادون لو فرحني kaasoo noo adeegayay intii ay jirtay gurmadka abaaru intii jireen oo noo adeegayay 7 maalmood muu la joogo 7 maalmood xitaa meydku soo guray kabacdi waxaan noo yimiday oo ku sii faraxnay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaan noo yimiday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxaan noo yimiday وزير كحجانك عافماتك الصومالي أمبلاس وين وديسني مردان عصبتان لهين وأمبلاس كسكور من النقل على الردايان ويلو دايين وان اللي دايين لبيلا هاي السوي لا هذا نوع على وزير بيلي كحست وان نصيب تر تاسنا وان نصيب تر
كلاوات وحن هوستقنا قبل كالسلم وحنا ندوناي دقمان قبل كأوضل دقمان بورم لوضع برصاب لوضع دقمو من نباهي ذا يدور كما هيا هدانو قلنا نمسو قادان ميران بلادوه بيسان ميرادا وحن كدونينا وحن لنا حكومة الصومال وحن لنا تبشر صالح تذكر وحي كحيي وحقوش الآن تدقمة بار يا حكومة أي كحيي لكن وحق برازي نبت قليل قرن كي أي ديابي وحن لنا والعصي اللي يصدرينا وحن لنا وحا لواتنا عن قبنه ومدة كلا سوماليان هي دقموية كلا عينين لا قبن إن هذا حنا واقف تمام لقى حسنينا بريدنا وحنا لي وريا صحافته وحن كأحسنينا إن اللقى كارسيسو تفعل على دقمة بون قبل كسلل